The national flag of Somalia. يا لمروين aniga oo ku hadlayo magaca dhammaan diblomaasiyiinta ku matala dawladda federaalka ee Soomaaliya xarunta sare ee qaramada midoobay ee New York waxa sharaf iyo farxad weyn ii ah uguna hambalyeynaya ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in maalintii shalay ahayd bisha Janaayo 2025 ay Soomaaliya si rasmi ah ugu biirtay golaha amniga ee qaramada midoobay muddo xileedka 2025 ilaa 2026 waxaan bogaadinaynaa taageeradiinii iyo dhiirigelintii joogtada ahayd ee aad nala garab taagneedeen ummadda Soomaaliyeed oo aan matalno muddadii aan u ololeynay ka mid noqoshada golahan waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa hoggaanka sare ee dawladda Soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xamza Cabdi Barre wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya ambassador Axmed Macalin Fiqi kadib markii ay malafkan siiyeen mudnaan mug iyo milgo leh kana mira dhaliyeen guushan aan gaarnay ugu dambeyn waxa inoo bilowday hawl baaxad weyn leh oo ay naga go'an tahay inaan u guda galno si hufan innaga oo maanka ku hayna in aan ka shaqeyno danta guud ee mudnaanta u leh xasiloonida adduunka iyo danta gaarka ah ee diinta dalka iyo dadka Soomaaliyeed kuna tashanayno taageerida dawladdeena dadkeena iyo dawladaha aan xulufada nahay wabillahi tawfiiq Soomaaliya ha noolaato